hooyo Tuxubey Maxamuud Dhiciso 10 sano ka hor ay isaga soo carartay Shabeellada Dhexe duruufihii abaareed ee xilligaasi dilaacay darteed waxayna deegaansatay beertii daraawiishta hadda sawaa kaamka sayidka maadaama ay kaabiga ku haysa taaladii halgamaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa hooyo waana udub dhaxaadka reerka waxay dhabarka u ridatay mas'uuliyadii qoyska oo dhan karinta shaaha iyo iibinta caanaha ay ku maareynaysa nolosha qoyskeeda 25 bishan ay geeriyootay kaliya iyada ma aha waxa la baxay wiilkeeda Sayid Cali Xasan Gaab waxa isla mashaqadan ay sabab u noqotay dhaawaca aaba Xasan Gaab Jareere gabadhiisa Maa'ido iyo wiil ay gabadhoodu dhashay oo reerka la koray waa qoys dhan aaba Xasan kulankiisa waa ay inoo ogolaadeen adeegayaasha ku howlan caafimaadkiisa laakiin dadnimada ayaa nafartay inaan Allah u caafimaad weydiino Maa'ido halista ay ku jirta darteed uma gudbi karna halka lagu dabiibayo waana xaalad ka culustan aaba uu ku jiro oo iyadaba ay nagu cuslaad inaan idin la wadaagno Cabdullaahi Xasan Gaab waa da'da ka yar Sayid Cali waxa uu ka soo safray tuulo ka mid ah Shabeellada Dhexe si uu kaga qayb galo aaska walaalkiis hooyadiis Tuxubey sidoo kale inuu helaysan ka warhayn u noqdo aabihiis walaashiis iyo wiilka uu abtiga u yahay mana awoodo inuu noo jawaab celiyo god carhoos ka yar jirta hooyo تعالى وسينا عرض وستيرو جراسين حلو جدا يا قردنا لودي هذا ماشي سويتي لنا ماضي ويسخر حيالي وشيء حاجي ماضي ساكي صلاة الصبح أصاب شوية Faarax Xasan Gaab waxa uu la hadlayaa isaga oo walaalkiis iyo hooyadiis ku soo hobsada taakooyinkii dhulkan ay ku lahaayeen qabri waxa uu sidoo kale isku qancinayaa in walaashiis iyo aabihiis oo lagu kala dabiibay laba xarumood oo midba xilli booqdo waxaan weydiinay sida ay wax u dhaceen say wax ku dhaceen hooyaday iyo aabay iyo saddex cunug ayaa meesha wax ku naqad aabay iyo hooyo walaalkay iyo hooyaday waa dhinteen Allah u naxariis aan leenahay ilaahay kuma darnaado waxaan kaloo leenahay aabay walaashay wiil walaashay dhashay saddex qofna dhaawac culus waa isbitaalada magaalada Muqdisho yeelay masaakiinana ay wadin shay kari jirtay ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsaynaa marka in loo kaalmeeyo oo muslimiinta ilaahay hooyo tabiix muddo baa la yiraahdaa si weyn sayidka looga yaqaan hooyaday xaalad ma sey maray عباد سوية aabba xaaladiisa tan ka socda socodkan dharkan bedel raba oo naqa aabba xaaladiisa way culusta ma hadli karin نتي كرنا راكنا aabba way utay kartiin hadii la ogolaado hal qof loo ogolaa saacad hal qof loo ogolaada awood ma jirto uu kaga jawaab celin karo weydiimaheena waxaan badan dareemayna saddex qof inay isbitaal ka taalo oo dhaawac culus lama qofoodna dhimato waa dareemi kartaa hooyadiis ku jirto markan raganimada rabcad lagama helaa la rigacada lagu baxshaa marka waa adkaysay weyna rogana ka gerirna asigtimo marka ummadda Soomaaliyeed wixii muslimiina han caawiyaan inta wax noo qaban karto warka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hooyo Tuxubey daris la jecel yahay ayay u ahayd kaamkan waxaan darisnaa 12 sano 12 sano isla deganna oo isku weelna الحمد لله رب العالمين إله ونحريستنا جنة الله سيئ محمداس درسنمada aad ay wanaagsaneed ilaahay baa qiyaamo ka siinayo adduunka waa ku jeclaa la kuwa ku weyna aakhira Allah ku jeclaa Maxamed aabihi waxa dilay qarax ka dhacay Jowhar waa saaxiibka dhaw ee Sayid Cali galaaska iyo ciyaar caruureedka ayuu ku helin jiray uu qirsan yahay geerida Allah ayuu u weydiiyay naxariis salaay aan fadal ku xaal labaad isin xawaan labaad سكري بتاعنا محمود شوف صلاة مركز واحد كلاش كبرون ليلة بنون الليل الله ونحرسته تعالي تعالى عاد تعالي وانت الله ونحرسته بس كانوا خصوصا قوم جعلنا صنعنا لا صنعك dadka kale ee dhibaatadu gaartay waxa kamid ah hooyo Xaawo Maxamuud Warsame Xaawo Qorgaab والله أنا قصدي واحد دعين كل يدانيجا مركز واحد ماشي وحكم فيلين وما في فيرين النقطة لكن أنا جاي نص على الشقة كإيمت ماشى أبتكان علي وفضية يا ماشي كل سلامة سيتم في عنتنا طرفنا قبل ماشي كنت تقولي ذا قصة قطع عن ساس وهستي سانتي مركز أنا ورك دمستير دقائق سدها يا ود محل خيط عن ساس سدها أنا جبتها نقاد
fartuun cabdulla xasan maalmo kadib ayay allah ka rajaynaysaa inuu kala keeno waana sidkeedii ugu horreeyey laakiin madaxa ayaa firir kaga jiraa wayna u diideen bahda caafimaadka in xilligan qalliin la geliyo sababa la xiriira uurkeeda qarax markuu jawda waxa halkaas iga dhac bir camal maqar in la igu dhifto camal naya ka yartay furahaan dhaawacanahay war ay qabta wiilay ag taagnaay wiilkii ay qabtay markuu arkay dhiiga ka socday dhiigiyaa la igu xiriyay way wadi isbitaalka qudus Soomaaliya waana la geeyay wayna meesha la iga xiray dhinacay firirka mala bixin karay qof uur leh aadahay laga saari karo meesha isaga juraya markii dhashidii markaas kadib leeyahay hada alxamdulillah daawooyin qalajiye ay soo qoreen waa roonahay laakiin xanuun meesha uu ku jiro xanuun ka dareemay email kala geeska oo maskaxda iga jira laba meel aadan maxamuud xuseen waa arday jaamacadeed waxa uu ku jiraa sanadkii 3aad ee waxbarashada waa dhaawac kama dahsoona cidda dhibaatada u geysatay gacan naga xaq daran un baan dishay sama meel u raacan mara gacan naga xaq daran ummad islaamka si loo luqmaayna aragtaan waxa waaye family meel joogo iska jeeso iska hergalayo aykoon waxaas dhan loo farxad saa ku soo kacay maanta dhan ku jiifeen haddana daqiiqad ka bacay mudug gale wax ka xun mara ay dood ma sha Allah ما درت مشكلة wax ugu diraado waxa ku gaaray nafso ma taqaan maanta waxa la yahay malahan saraakiil baa la dilay dawladda dadka tirsan baaba'ay dad noocaas baa saas noqday dad kale malaha waxa la gumaaday waa shacabka waxayna shacabka meesha degnaa guriyeen hortoodii ahaayeen qofna ma awoodo inuu ka jawaabo sababta ay wax u noqdeen ishalligihiina ma oga sababta uu u beegsado dad shacab ah oo weliba danyar ah laakiin kooxda ka been sheegtay diinta ee al-shabaab ayaa ku faanay inay laayeen saraakiil ka tirsan dowladda sida ay ku baahiyeen baraha xiriirka kooxda u qaabilsan dacayaadka raqiiska ah dadka halkan ku dhaawacmay waxaa ka mid ah xawa maxamuud warsame fartuun cabdulla xasan abshir aadan dhoore aadan maxamuud xuseen xasan gaab jareere maayda xasan gaab jareere ibraahim cali axmed libaan asmaan maxamed daahir cumar shiite 9 qofood waa dhaawac midkoodna uma diiwaan gashan dowladda Soomaaliya kama tirsan ciidamadeena laakiin waa dadkeen Allah u naxariistay hooyada Xubey Maxamuud Ducso ayaa geeriyootay wiilkeeda Sayid Cali Xasan Gaab Jareere warbaahinta dowladda iyadoo ka duulaysa soo bandhigida raadka muuqda ayay la jir kula noqotay xanuunka haraadiga reerkan ay wajahayaan sidoo kale ilgaarana ku eegaysa dareenka dariska qoyskana Allah jeclaaday oo iyaga laftooda qaarkood dib gaartay halka ay wax ka dhaceen waxay xigsiin ahaan jirtaa degmada ganacsiga ee Howlwadaag gudoomiyaha degmada Mustafa Cali Khayr ayaa si guud noogu sharaxaya qasaaraha ay diiwaan galiyeen oo sii kordhi kara marka loo fiiriyo agabka uu qaraxa ka kooban yahay oo ay ku jiraan biraha ku sii dhex jira kushineetooyinka waxaan u maleynayaa inaad tagteen meelihii dhibaatada oo aad soo aragteen wixii meeshii si wax u dhaceen iyo sidii wax u yaalaan markaan warbixin guud dhiibo dhibaatadii shalay meesha ka dhacday qasaarihii ka dhashay dhaawaca guud wuxuu ahaa 9 qofood 3 waa dhaawac culus oo xaaladooda waa serious maxaa la yiraahdaa dhaawaca kale oo fududne oo aan isleenahay ilaahay wuu ka kicin doonaa hadduu ilaahay ra insha Allah waa 6 dhimashadu ilaa hadda intaan hayno waa 3 qofood waaye ciidamada amniga ayaa u diiday argagixisada dhigista gawaarida qaraxyada weerarada meelaha dadka ay isugu yimaadaan ee ganacsiga ah laakiin gudoomiye Mustafa waxa uu jawaab u waayay sida ay u qorsheeyeen maleeshiyada al-shabaab leynta dadka waliba kuwooda ugu sii nugul runtii waxaan rabaa inaan ammaan ballaaran u soo jeediyo hay'adaha ammaanka oo dadaalay gaarsiiyay marxaladii ugu dambeysay oo naflacaarnimadii ahayd in inta qof isa soo xiro asagoo lugeenaya imaado dad shacab ah isku dhex qarxiyo marka aniga ma garan karo runtii ulujeedka iyo waxa uu ka dan leeyahay laakiin waxaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo shacabka Soomaaliyeed aan ku iraado wad u jeedaan haddii shala gaalo iyo wax daran ay mataqaana ay dhahayeen oo la gumaaday
maanta shacabkii qof walba indheer garad hadday noqoto aqoon-yahan hadday noqoto wadaado hadday noqoto maxaa la yidhahdaa dhaqaatiir qof la kala reebaa inaysan jirin loo istaago cadowgan loo istaago maxaa la yidhahdaa gacanna aan iskaga qabanno cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho